سير وحن اسكو داينين عن شقدي عن تبدلينو because of security oo xogaa soo hagaagtay dadkii oo soo deganay oo bilaabeen inay markaas ay lagu dhiirigeliyeen inay ka shaqeeyaan xoolaha nool waxay taas u saamaxday in sanadkan aan dhoofino xoolo badan waxaan dhoofino ilaa iyo 5 markab oo aan dhoofino maan haddana waxaa qorshaha ku jiro in u dhoofino wadanka Ciraaq waxaa kaloo qorshaha ku jiro wadanka Imaaraadka in sidoo kale aan dhoofino mar walba Soomaaliya livestock waa dad oo livestock dhaqadaba ma aha wax shaqo ay hadda bilaabayaan ma waa iyaga dhanba waa xoolo dhaqato waay marka taas waxay u saamaxay familada xoolaha dhaqanay in haddii xoolahooda suuq loogu keeno in iyagana ku sii dhiirigelisay ku sii adkeeyaan xoolaha dhaqashadooda maxaa yeelay haddii familada ay helaan maanta in xoolahoodii laga gadanayo qiimo adag loo gadanayo lacag oo international oo adag loo gadanayo